qof kasta oo dunida jooga wuxuu tacab iyo dadaal ugu jiraa sidoo hanti u tabcan lahaa oo u siyaadin lahaa laakiin xaqiiqada xanuunka badan ayaa waxay tahay si kasta oo dunyada lagu balbalaariyo oo ay kugu korodho marnaba ma dhirgi doontid oo baahideedu ka dhamaan mayso xadiis saxiixa oo macnihiisu yahay in aadam hadii tog soconaya oo dahaba oo waxa adduunka ugu qiimo badan ah hadii la siin lahaa kuma qancayna wuxuu jeclaysan lahaa in mid labaad lagu kordhiyo afkiisa ma buuxiso ilaa ciida marka dhamanka la dhiga mooyaane ilaahayna qofkii u toobad keena waa ka aqbalaa sida darteed xadiiskaas wuxuu muujinayaa si kastoon u dadaalo oo hanti fara badan aan u helo rabbi inoogu balbalaariyo misana inaynan ku qancayn Soomaalida hore uga mahmaahday waxay tiri adduunku waa sagaal oo ma tubanoobo xaqiiqatan si kasto adduunyadu maanta aad isu leedahay way isu haysataa misana waxba ka maqan waxa laga yaabaa inaad caafimaad qabtid laakiin hanti aadan haysan aad ku baashaasho ku raaxaysato waxa laga yaabaa inaad hanti haysato laakiin caafimaadkii aadan haysan waa sidaas dhinacyada nolosha oo dhan waxa laga yaabaa mid inuu hanti hayo laakiin meel amni leh aanu ku noolayn mid waxa laga yaabaa meel amni ah inuu ku nool yahay laakiin dhaqaale aanu haysan mid waxa laga yaabaa inuu hanti haysto laakiin awlaad uu ku indhakuusho aanu haysan taasi waa macnaha nolosha waana ilajeedka Rabbi subhanahu wa ta'ala uu kale yahay haddaba xadiiskan ayaan ku soo gabagabeynayaa nabi عليه الصلاه والسلام uu yiri qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima aataah waxa liibaanay oo liibaan dhab liibaanay midka waxa weeyaan islaama oo muslim noqda risqiisuna ku filaado kuna qanca wixii Rabbi subhanahu wa ta'ala uu siiyay haddaba waxaad haysatid ku qanac farxad baad ku noolaan aakhirana wad liibaani aad ma santahay bisharo loogu bishaareynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada Qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo aqoonta barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha aqoonta ku tacalluqa haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550 aad baa u mahadsantahay